Imaaraadku Soomaalida lacag 7 bilyan oo dollar ayay sanadkii ka sameeyay jireen wax kasto ay Soomaalidu quudanaysay 30kii sano ugu dambeeyay 90% ku dhawaad waxa laga keeni jiray Jabal Ali iyo dalkaasi ay soo mari jireen wixii ayaga aan laga keeninna waa la soo mari jiray hadii gobol dahabla tahay iyo hadii gobol ay dukaan haysato iyo hadii xawaaladu jirto iyo hadii uu jiro nin xogaa baawur meel ku iibiya iyo hadii bagaash uu jiro waayo Soomaalidu waa consumers Soomaalidu wuxuu bay iibsataa waa custom waa suuq Soomaalidu wax soo saar ma laha wadan aan cuntadiisa la soo bixin wadan aan warshado lahayn wadan xabad saamuuna haduu baahna banaanka looga doonayo ayuu ahaa sidaa daraadeed Imaaraadku waxa ay dekadiis u shidnaayeen doonyaha Soomaalida maraakiib containers la keenay jiray kadina doonyaha loo soo kala diri jiray Boosaaso Kismaayo Muqdisho المعان مركي وخرى ما حياتي إن أفرت كرشوا بربرة أي لو كلا درجة وحيات مهل دن وطن دن إنه لا شيء سيء عنتدي سيء وحيس بقى كحرين هكذا سعودي أو عين الله حين علاقات بين حريين أنت حتى حكم الناس يبسجر وطن خلينا نسكب الدابة عمان وحقات دقيقة اللي جسوا يبيشري سنكرت لقى كانوا برازيل حتى وحيزوم اللي جرتي ذلك اللي هذو وحيزوم اللي جرتي ذلك إمارات كسومرت هل كذا الوجود تشتري إلا إن مراكيب كينيا كونتينرز لأنه كونتينرز ما ينال هنا دكورو دكتن مقدشو لقصة حرية تنبر برموجي سيدا ساي بايكوتين هنتو إماراتكم مركها لنا عقنا السجارة الصومالي ده وحي واحد محليات ير أو جميستو ويجوا صامرتو لكن وحو جروي إن أي صومالي دو أي أحيدد ولا الذي سأو شبي أو هنتي أيجا أي وباهيين أو أي علاقات كده كونها تكر الهاي سيا تركوا وكله هذا تركوا دمبولي ودن بلادنا أو رنايا interest ملي هي وانسك صعنايا هرت متشر لكن دمتا بالفير سيو كل دوينه ويدوسها يلا بعض ضل سيو كل دوين تلقى تركه أسوي دان كمالها سياسة جودها الصومالي يعني مكان با كان ديدن مكان با كان أقل مكان با كان أقل دولة دي مركز شوكتور شقي سنايا مدحويننا أيوة ماشي أنا كان صدام مرحبا بالفيري شيخ شريف ولا شقينية حسن شيخ ولا شقينية فرماجة ولا شقينية نول ولا شقينية ما أيوة رمان common interest واحد هذا ما رمان مركا common interest ما يكون ماذا common stability وأنا يحصلوني جود ماذا مركا يتماذا دن جود حصلوني جود وين يتماذا لبضة المركا أنت بدن دبلوماسيات الدنيا أي ديسنتو اللي جوش جاي واقعك لكن وبرعدنمو إن ترى هذا قف بان لا تجعلما يا دولة مدحونك قف نوان لسيا وبرعدنما سياسات الدون كنا كما شقيسو أنا داس الدون كما شقيسو مال أي كشقيسة مجرد هذا تصالحان ذلك قدر واقعي شيخ شريف ولا شقيني أو محيط مركي يهاين محكمة دي ولا شقيني هرت إسلامية شيخ شريف ولا شقيني حسن شيخ ولا شقيني فرماشان ولا شقيني waxaa laga yaabaa imaaraadkaas hadii maanta ayagu qatar in qof kale la sii shaqeyso marka waxa la oran karaa dalalka labadaasi dal waxay ka duwan yihiin dalka isku taga imaaraadka carabta dalka isku taga imaaraadka carabta marka waa maxay sababtay u raadinayaan qof waxay raadinayaan qof ayaga ay farakahayaan waxay raadinayaan qof ayaga loyal ah oo ayaga daacad u ah bedelka dalkiisa u ahaa laha waxay raadinayaan qof ay video ka duubeen miyaa waxay raadinayaan bal la garan maayo waxa uu laga yaaban yahay qaabkan ay wax u raadinayaan wax qof anaga daacad noo ama qof ay soo dhaarsadeen ba ma qof ay video soo iyagu lacag siinay ka duubeen ba ma wax kale ay sameeyeen maxay u doonayaan qof wadanka labada dal cilaaqaadka maxay u xumeynayaan cilaaqaadka ugu wanaagsanna Soomaalida ayaga la leh oo la laha macnaha waxa ka hadlaya dad dal adduunka cilaaqaadka ugu wanaagsan waxa weeye waa people to people markay noqoto dad cilaaqaad la leh seeba dad cilaaqaad loo yeeshaa waa dad ganacsi la leh dadka meesha xafiiso kale meeshii degan dalkii marka aad gacanta ku haysaaba waxaad kaliya u baahan tahay inaad muujiso dalka inaad daacad u tahay dawladnimadiisa inaad la shaqeeyo inaad dalkaasi ay daacad ka tahay inaad dawladnimada u timaado aan wada la shaqeynaya waa mar walba imaaraadku ayaga iska xumeeyay Soomaalidu way sii badalahayd joogteynteeda iyo cilaaqaadka imaaraadka la lahayd hadii imaaraadku siyaasadiisa uu xasilooni guud ka dhig lahaa oo dhig lahaa anagu dawladda Soomaaliyeed timaadaba waa walaaladii wala shaqeynana maxay doonayaan shakhsiyaad calosh shaqaystayaala oo iyaga daacad ah qof shakhsiya oo dal kale daacad ah ama soo dhaartay ama dad kale soo tashkiiliyeen sidee ayuu masiir ummad kale u maamuli karaya dalalka carabtu way taageeraan dadyooga waa la taageera xisbiyadan Mareykanka qaarkood waa la taageera oo maartay in soo laga joojiyay taageerayaasha noocaas kale way jiri karaan oo dalku dad uu taageeri kara laakiin si cid ma dhaarsan kartid marka imaaraadku waxa soo dhan wuxuu u sameeyanayaa وحويه أنا إذا شيء كذا علتي كل فينا عندك قلوة هالكن ويو إن هذا أقول يرين بارفان صاقه وحويه أيجا دنتو ذا معها إن صومالي أي دكتور أي دولة حق النقطة
way faaliyeen dhinac walba ka istaageen waxay ogaadeen Soomaaliya location ahaan way ka wanaagsantay xeeb ahaan way ka xeeba badanta dad ahaan way ka badanta istaraatiiji ahaan way ka wanaagsantay cimil ahaan way ka fiicanta beer ahaan way ka wanaagsantay kalluunkii oo inta Soomaaliya laga qaado toos Shiinaha loo geeyo la helaya shidaalkii baas jiro oo iyagana macdintii kala soo socoto laga yaabaa marka way ka dekada badnaanaysaa oo dekadeen infrastructure ay ugu yaraado laakiin tee magaalada dekada yeelan karta Soomaaliya dhowr boqol oo magaalo ayaa dekada yeelan karta hadii investment loo helo wadamo iyo shirkado invest gareysta marka albaabada u xirmaya israaqadoodii inay xirmaso ayay ba u soo baxday marka maxay go'aansadeen in aysan Soomaaliya ka shaqeeyaan xasilooni daradeeda imaaraadka lacag kasta oo laga keeno shakhsi kasta oo imaaraadka taga wuxuu raali ka yahay isla markaana uu daacad u yahay in Soomaaliya ay dawlad noqoto imaaraadku markay dhinac walba ka eegeen dulmaasi kasta weydii waxay arkeen in Soomaaliya hadii ay soo noqoto oo ay dal strong noqoto inay meesha ka baxayaan Ethiopia Soomaaliya maxay uga baqaysaa cabsi ay ka qabaan inay dadkooda Soomaali galbeed la gumaysanayay goostaan oo la soo noqdaan iyo inay dominate gareeyaan militarily iyo politically gobolka wayna noqon doontaa and I believe me or not waayo Soomaaliya Kenya iyo Ethiopia labada hoos bay socdaan qabyaaladii inaga 91kii inoo cusbeeday aynu moodayna inay naf leedahay hadda laakiin qof kasto aqli leh qof kasto wax bartay qof kasto iimaan iyo diin la ogaaday inay feegahayd oo aynu ku baabaanay kaliya ayaga hadda u cusub hadda u soo urasa sidaa daraadeed ayagu maxay tahay inay inaga baqaan xaq bay u leeyihiin oo inagu wada waa ka baqanaa Ethiopia halis bay inagu tahay Kenya halis bay inagu tahay waayo Ethiopia halis inagu tahay halis inagu ma hay waba inagu noqoto wayna baabiisaya wayna indhaheennu shan arag dal bay naga qaateen kadibna wayna sii baabiyeen 20 sano iyo 27 sano iyo dusha naga saarnaa inuu gumaysanay madaxtooyada inoo fadhiyay askari Ethiopian oo dalkeena xukumayay intuu baaskoolad qaato ayuu madaxweynaheennii meel uu joogo tagi jiray sarkaal shisheeya oo baaskoolad oo haduu doono inuu xanuunsanayo haduu doono xanaaqi kara oo baaskoolada laga soo reebin hadeertana madaxtooyada marka dadka Soomaaliyeed markay galayeen waxa la ii sheegay in xataa telefoon loo ogolayn in gudaha la galaan laakiin ninka Ethiopian-ka gabri madaxweyne Xasan Sheikh buu la arkay isagoo la sawiran oo baaskoolad dabada ugu jirto that's crazy yani halkaas la ugu gaarsiiyay yani halkaas ayna la gaarsiiyay kolka imaaraadka halistiisa uu arkay ayaa taas ah imaaraadku marka raali kama noqonayo Djibouti oo dal yar ah oo aragteen oo intuu leeyahay oo hal dekad leh ay raali ka noqon kari waayeen oo dekadoodii ay cunaas ka duubeen markii dambe ganaaxay ma adiga oo intaas oo dekadood heli karaya ayay ka noqonayaan raali marka waxay rabaan in aad sidaas diin maamul goboleedo oo dalku si kala ahaado maamul goboleed kasta heshiis beenaad yar ka saxeexdaan ay noqdaan maxamiyad arrin kale aan ku sheegaya haddii imaaraadku ay keeni waayaan warqad cadeynaysa hadalkaygaas meel ku dhigta hadeertaba haddii ilaahayna gaarsiiyo arki doona hadday keeni waayaan warqad cadeynaysa sidii Anwar Qaraash uu sheegay in dawladda dhexe Soomaaliya heshiiska berbera u saxeexday waad ogaa doontaan dawladda dalkaasi maxkamad bay saari doontaa Soomaaliya waxaana laga qaadi doonaa magdhowgii ugu ballaadhnaa baa laga qaadi doonaa waayo sovereignty-ga wadanka ayaad ku xadgudubtay la oran doonaa hadday keeni weydo warqad ee boosaaso ku saxeexatay oo dawladda federaalka Soomaaliya ee Xasan Sheikh ay sheegaysay tir way noo saxeexday ay keeni weydo tusoo taabsiya documentations hadday keeni weydo warqadaana the meantime laga heli waayo arkeefyada dawladda Soomaaliya laga heli waayo ayadana maxkamad baa imaaraadka carabta la saaraya oo waxaa laga qaadaya in ay xadgudub ku sameysay ma jiro aniga waxaan joogaa gobolka Ohio dalka Mareykanka gudoomiyaha gobolka Ohio Mr. Dewine ma geli karo heshiis international macaahid ma soo geli karo oo intuu tago Ingiriiska Canada ugu dhow xuduud aan la leeyahay gobolkano xuduud la leenahay dalka Canada iyo intuu xuduudda ka gudbo halka tago Canada lama soo geli karo dawladda heshiis dadka qarkood ku doodi karaan si caadi fadaysan Soomaaliland way gooday Soomaaliland way gooday laakiin way tir waa go'ona iyaga yiri laakiin si lagama yeerin may go'in marka sharci ahaante maxay ugu jirtaa waalin walba inaga aragna waxaan ka hadlayaa waxa weeye waxaan ka hadlayaa maaha afkaar waxaan ka hadlayaa xaqiiq waxaan ka hadlayaa international norms waxaan ka hadlayaa international waxa loo yaqaan treaties ama sida heshiisyada caalamiga loo gala dal wuxuu heshiis la galaa dal madax bannaan oo kale dal madax bannaan ayuu heshiis la galaa waliba heshiisyada maalgashiga ee leasingka ay ku jiraan infrastructure leasing waxa loo yaqaan heshiisyada karaynta iyo in lease la siiyo 30 sanadood intaas sanadood laakiin arinta ugu daran waxa weeye in Soomaalidu iyadoo is khiyaameysay
oo sida Anwar Qarqaash uu sheegay oo isagu sida cad BBC uga sheegay uu yiri dawladda Xasan Sheikh baa noo saxeexday hadday taa keenaan oo cadeeyaan fine baarlamaanka Soomaaliya laakiin tuuray taana arrintaasi imaaraadku waxyaalaha ay ka hortagayeen waa sababaha ay u rabaan qof ayaga daacad u ah sababaha ay u rabaan waayo dadku deynagoo kale maaha way fakaraan aad bay u fakaraan oo runtii aad iyo aad bay u fakaraan marka waxba ha caroonina boosaaso iyo berbera haddii arrintaasi ay saas noqoto saas noqon doonto haddii ay waxayna ku badbaadi karaan laba arrimood oo idin sheegay hadeerta imaaraadku kow inay ku guuleystaan qof ayaga daba dhilif waa inay keensadaan laba in ay run tahay oo ay waraaqahaasi ay wax ka saxeexday dawladda dhexe Soomaaliya oo la cadeeyo labadaas day helaan adduunka sharciyad baa ka jirta waa khaldaneen iyo waa la qariyay iyo waxaasi dee waartay waxa uu noqon inkastoo baarlamaanku uu tuuray laakiin baarlamaanku wuxuu tuuray muxuu ahaa xitaa wuxuu tuuray si wacan ma cadeyneen ma oran waxay yiraahdeen heshiiska berbere uun bay yiraahdeen moogti laakiin ma aysan oran heshiiska labada dawladood ee galeen ma aysan dhihin Soomaaliya iyo Imaaraadku ma aysan dhihin waxa laga yaabaa xitaa in erbixinta la isku si kala hadhowto la isugu adeegsado haddaba qaybta afraad daawadayaasha qiimaha badan idinkuna barnaamijka qaybtan comments-ka fadlan ka dhiibta aragtidiina sidee u aragtaan arrimahaasi imaaraadku si muxuu Soomaalida ka damacsan yahay ma kula tahay arrimahan oo dhan in ay imaaraadku hagaagi karaan sidee Soomaalida se looga hortagi karaa arrimaha kale dhacdooyinka ugu dambeeyay ayaa kamid ah waxyaalahan soo qaada doono daawadayaasha qiimaha leh sidoo kale wada shaqeyn al-shabaab iyo imaaraadka ayaa kamid noqon doona